wasiir iyo kumida in wasiirka arrimo gudaha howlaha guud iyo guriyeynta gudoomiyaha gobolka Baay iyo kan degmada Baydhabo iyo si wada jir ah bayo inshiidkana jid hariiriyow xaafado horseed iyo holwadaag ee magaalada Baydhabo oo reedan soo lagu soo biidoona dhawaan jidkun oo 800 mitir iyo muddo burburyow ka dareertay gaar ahaan Menatakiyaale jidka baalashay iyo madaxdana sheegan inta saasaatow la dhisaw boonda hariiriyaasa xaafado horseed iyo holwadaag gudoomiyaha gobolka Baay Cali Wardheere Cabdiraxmaan iyo marka hore ma sharaxay jidkun iyo sidoo anfadayaan antiyo an dhisan may boo xafladan geek uu surugno may waa mashruuc dhagax dhig jid oonay toy 800 mitir iyo boondo laga talagalay in oonay toy fuliyaan degmada Baydhabo iyo maamulka iyo gobol iyo wasaaradda iyo state ka dhanba ku qeybgaadan iyo shacabweynaha ka nool gobolka Baay gaar ahaan degmada Baydhabo oonay toy la ka fuliyo isalqaan marka mashruucaas geek dhagax dhig hohaan wasiiradii iyo nidaamka dhamaantiyo iyo dowladda magaalada marka may ku codsadaan dadweynaha dhamaantiyo in diyaar nagadaan in jidkun kiyo hoojo iyo tabartiyo ka deefadan nagada oo ay toylka fuli may rajeeyna insha Allah in Ilaahay in fududay wasiirada arrimo gudaha iyo kan howlaha guud ee koonfur galbeed iyo hadhawaayeen talaabadoon la ka dhisaw jidkun cusub may bana ka baaqayna shacabka labadan xaafadood intii doorsho ku qaadan wada oo wadooyinka cusub oo Baydhabo lagu biyahay kumid hadii wadooyin hirinay la furaay imse hadii wadooyin magaalada dhatiya la dhisay may bahatana guulaha ani wada cusub oo ma banjarajarna la ka kordhi magaalada marka aringeedan weyn si magaalada nafista isu socod la hela maadaama magaalada population jana korahay baaro badanna magaalada may leeyahay ruwan ani wadooyin cusub leer markan ayadan ka faraxsana wayba eedan kama nagaan gudoomiyaha gobolka oo fikirkaas la kooy oo may leeyahay intabi iyo maamulka degmada gudoomiyaha degmada way rajeeydoona insha Allah taala mashruucan ku bedeladaan doona ki hore wayna doona ki bulshada iyo dawladda suuqaalada doonaan may rajeeyna insha Allah taala bulshada degan xaafadan mas'uuliyadda kooda inay saaran ani boondodan la dhisa bridge qurux badan mise boondo qurux badan la saara jidanbaha may dan tareer Baydhabo si gaar ah dadka xaafadan degan markan iidan ka codsadaan inay qayb ku qaadaan si guud bulshada reer Baydhabo ganacsatada iyo dhammaan may leeyahay reer Baydhabo way ku rajeeydoona yoona inay qayb ku qaadaan sidii la dhisi lahay wadadan way rajeeydoona insha Allah taala qof walba may ba qiimo kale soo dan shay dhisada dadku maskaxdooda ay geliyaan waxaan haddaan cid kale inaga taageeraynin wado buundo bulsho ma dhisi karto ama systemka hadda maanta jira ma dhisi karo lama dhisi karo laakiin muhiimaddu waxa weeye in dadku inay waxa ay qabanayaan ay kari karaan ay aaminaan weeye waa in la aamino in la kari karo in waxaan la samayn karo haddii la aamino waxaad garan kartaan aboor inaynan keli aboor oo gacanta lagu baruujinayo caawo dhan soo waxa dudubada artay buu dhisahaya jidkun ya hore ma banhay meel cariiri ah oo marowshay bulshada dhibaato ka qaban maadaama hadda la burburi may bana qorshagu u seeyaa inta la dhisa isla markaasina bulshadu isticmaal koran bilooyin kureed madala dhisa